maya aniga qoriga dhashiika la yiraahdo ku dagaalamay aqaana aakaan oo ku dagaalamay aqaana wax walba ku barto hore u taqaan hore u aqaana wax walba oo qawaarish loo adeegsanaan waa ku dagaalamay aqaanaaba madaxweynaha Soomaaliya waxaan ugu hambalyeeynaa dagaalka qawaarishta lagu qaaday oo meel kasta oo ka socdo oo Soomaaliya kamid ah qaasatan haddana galmudug aad gulufka oo shaab lagu dagaalamayo oo u jiro gabdhaha iyo dhalinyaradana waxaan ugu baaqaa inay ka qayb qaataan qof walba oo Soomaaliya muslim ah ka qayb qaato magaceedu waa Faadumo Barre Maxamed waa hooyo Soomaaliyeed waxa ay kamid tahay ciidanka deegaanka ee furmaha hore ee gobolka Galgaduud ku baacsanaya kooxda qawaarishta al-shabaab Faadumo oo wareysi siisay warbaahinta ayaa sheegtay in sababtu ku kaliftay in ayadoo dumar ah isla markaasina hooyo ay qaato qoray inay tahay in ay la dagaalanto kooxda qawaarishta al-shabaab maadaama kooxdan ay yihiin koox ku soo duushay diinta dalka iyo dadkaba waxaan ka tirsanaa ciidanka Macawisley waxaan la dagaalamay qawaarishta al-shabaab oo dhiigayga iyo maalkayga banaystay inaan la dagaalamo waxa uu kalifay wax aruur dhashay jiraan ha meeqa aruur 4 cunug aan dhalay xagee jiraan hooyadeen u soo tagay Faadumo oo sii wadatay wareysigeeda ayaa haweenka Soomaaliyeed waxay ugu baaqday inay garab istaagaan geesiyaasha qaranka ee dagaalka adag kula jira kooxda qawaarishta al-shabaab isla markaasina ay la qaybsadaan kulaylka iyo qabowga maadaama waxa ay uga soo dheeraadeen guryahoodii iyo caruurtoodii ay tahay inay deegaanadan ay dalkan ka xorayaan kooxda qawaarishta al-shabaab gabdhaha Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa qawaarish gurigooda ugu imaanaysa hadaysan ka hortagin ha iska celiyaan qawaarishta ha ka hortagaan fadhiga ha ka kacaan wiilasha jooga jiida garab ha siiyaan ugu dambeeyay Faadumo ayaa bulshada Soomaaliyeed waxay ugu baaqday inay kaalin buuxda ka qaataan dagaalka lagula jiro kooxda qawaarishta al-shabaab iyadoona sidoo kale hambalyaha wada u mariday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo asagu qaatay go'aan ah in la dagaalamo kooxda qawaarishta al-shabaab walaalay waa mahadsan yihiin qof walba oo shabaab la dagaalantay aniga waa u mahad celinayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa dagaalka shabaab lagula jiro inay ka qayb qaataan qaasatan dawladda Galmudug inay taageero iyo inta ka dhaxeeyda noola timaado ciidan madaxweynaha Soomaaliya waxaan ugu hambalyeeynaa dagaalka qawaarishta lagu qaaday oo meel kasta oo ka socdo oo Soomaaliya kamid ah qaasatan haddana Galmudug aad gulufka oo shabaab lagu dagaalamayo oo u jiro gabdhaha iyo dhalinyaradana waxaan ugu baaqaa inay ka qayb qaataan qof walba oo Soomaaliya muslim ah ka qayb qaato